filimkeena waxa uu ku bilaabanaya wiil yariis ah oo la dhaho Bradley oo da'diisu tahay 12 sano. baaskiilkiisa ayuu ku aadaa iskuulka, ardayda iskuulkana si xun ay ula dhaqmaan asagana wax saaxiibo ah kuma lahan iskuulka. maalin waxa isdagaalaya mid kamid ah ardayda fasalkiisa kadib markii uu dhibsaday codka ka soo baxaya asaga. mid kamid ah macallimiinta ayaa ka soo gaaraysa waxa ay u kaxeynaysaa labadooda xafiiska maamulaha. maalin kale asagoo xiisada ku jiro waa uu isxakameeyaha waxa uu qaniinaya qalinka. lugihiisana waxa ay bilaabayaan inay jarayaan. xiisadana waxa ka hartay 40 daqiiqo. xaaladiisana waa ay sii xumaanaysaa, ardaydana waxa ay bilaabayaan inay ku qoslaan asaga. macallimadana waa ay ku xanaaqaysaa, si xun ay u fiirinaysaa, waxa ay u malaysaa inuu kas ka wado waxaas. waxayna ku dhahaysaa ardayda raaligeli hadartaan. wiilkan maskiinka ah waa uu jiran yahay, waxa ayna ka dhigaysaa jirida hayso inuu u qaylay sida eeyaasha oo kale. dhaqdhaqaaqa jirkiisana uusan awoodin inuu xukumo. macallimiintii oo dhanna waa ay dhibsadeen, waxa ayna waceen hooyadiisa. waxay ku dhaheen haddii wiilkaaga aad si fiican u tarbiyeyso anaka waxa ka racdeenayna iskuulka. dhakhtar markay u geysana wuu aqoonsan waxa cudurka hayo cunugeeda. waxa uu ku dhahayaa cunugaaga waxa uu rabaa inuu noqdo caan oo dadka laga dhex aqoonsado, sidaas ayuu u qeylinayaa. maskiinka aabiis iyo hooyadiis waa ay kala tageen. aabiisna marmarka qaar ayuu u imaadaa si uu ula ciyaaro asaga. maalin waxa ay wada ciyaarayeen ciyaartan, waxa uuna ahay mid aad u faraxsan. markii ay dhamaatay ciyaarta waxa uu soo raacaya aabiisa, waxa uuna bilaabayaa inuu isxakameyn waayo waxaana ku soo kacayo cudurkii. aabiisna aad ayuu u xanaaqaya, waxa uuna bilaabayaa inuu garaaco wiilkiisa. asagana waxa uu ka oynayaa qalbiga, ma ahan wax uu xukumi karo, waa jiraheesa asaga. aabiisna waxa uu ku nacay midaas markii uu gaaray meeshii uu u soo waday, xataa wiilkiis inuu sagootiyo oo habsi waa uu awoodi waayay. nolosha wiilkan maalinta ka dambeysa waa ay sii xumaanaysay. jareenta uu jareenayo iyo codka eyga uu soo saarayo waxay ka dhigtay fasalkiisa foodo. maamulaha naftirkiisa ayaa imaanayo. wiilkana maskiinka waa uu ooynaya, waxa uuna dhahayaa aniga ma awoodi inaan xakameeyo nafteeda. arrinta farxadda leh ayaa waxay tahay waxa uu haystaa hooyo fiican oo ka fikiraysa oo jecel oo ku kalsoon. hooyada waa jecelka keliya ee sugan ee dhabta ah ee aanan marnaba isbedelaynin, xataa haddii uu isbedelo zamanka iyo dadka, ayada jecelkeeda waa uu jirayaa. Bradley hooyadiis waxa ay u tagaysaa maamulaha, waa ayna ku qaylinaysaa. wiilkeeda ayaa la jiraysaa, waa ayna ka soo kaxaynaysaa iskuulka. waxay ku dhahaysaa wiilkayga iskuulka ma ku fiicno, waxaan ku raadinaa iskuul ka fiican kan. ayada waxay ahayd hooyo caqli badan oo aaminsan in wax kasta ay keeneen sabab. waxay aaday maktabada buugaagta, waxa ayna bilowday inay akhriso buugaagta caafimaadka ah oo ka hadlaya cudurrada layaab kale oo sidaan oo kale ah. markii ay akhrisay buugaag badan waxay ogaatay in cudurka magaciisa la dhaho Tourette syndrome. cudurkana qofka waxa uu ka dhigayaa inuu sameeyo dhaqdhaqaaq uusan xukumi karin, sababtoo ah maskaxda waxa ay soo diraysaa fariimo walwal ah. dhakhtarkii ayay ku laabanayaan, asagana waxa uu dhahayaa si qaldan ayaa u sheegay markii koowaad. waxa uu ku dhahayaa cudurkan ma lahan wax daawo ah. hooyadana waa ay murugoonaysaa, sababtoo ah cunugeeda waxa uu la sii noolaan doonaa cudurkan. wiilkeeda quruxda badanna waxa uu ku dhahayaa hooyo dhibaatadan waa ka bixi doonaa. kadibna wiilka calaadul waxa uu wacaya aabiis, waxa uuna u sheegayaa xaaladiisa. aabahana waxa uu ka shalaynayaa sida uu ula dhaqmay wiilkiisa, halka hooyadana ay tahay boqorad mana taqaana erayga isdhibidda ah. waxayna wiilkeeda u kaxaynaysaa hay'adaha qaabilsan cudurkan. waxayna isdheysay wiilkaada markii uu la hadlo dadka qaba cudurkiisa oo kale waa uu fiicnaan doonaa. arrintana si ay u malaynaysa ma noqon, waxa ay noqotay bilcagsi. ayaka dhanna waxa ay ka sheeganayeen dhibaatada ay u geysteen iskuulada iyo shirkadaha iyo shaleemooyinka iyo dadka ay la kulmayaan. meesha dadka joogay oo dhan waxay ahaayeen dad negative ah. hooyadana way ka soo kaxaysatay wiilkeeda. waxay ku dhahaysaa meesha ma aha meesha cudurka lagu daaweeyo ee waa meesha laga qaadabo. asagana waxa uu ku dhahay aniga misdhiibaya, ayaka waa ay isdhiibeen. kadibna wiilka waxa uu sidaas ku dhammeynaya dugsi hoose iyo dugsi dhexe, waxa uuna gelayaa dugsi sare. inkastoo ardayda ay fuudayaan laakiin asaga misdhiibo. macalinkan waxa uu ka dalbaday inuu sii jeesto. kadibna wiilka waxa ku bilaabanaya walwal, waxa uuna bilaabayaa inuu u qeylay sidii hore. macalinkan intuu xanaaqo waxa uu u dirayaa xafiiska, laakiin halkan waxa ay ahayd meesha uu ka bilaabanayo isbedelka wiilkan. waxa uu la kulmay qofkii bedeli lahaa noloshiisa oo dhan, waana maamulaha. waxa uu weydiinayaa sidoo kula muuqda iskuulka. wuxuu ku dhahayaa iskuulka waa goobta tarbiyada iyo tacliinta. markuu hadalka dhameeyo waxa uu ku dhahayaa maamulaha beri ka soo qaybgal xafladda. asagana waxa uu bilaabayaa inuu walwalo oo cabsado, maxaa yeelay weligiis muusan aadin xaflad. intuu xafladda joogana waxa uu bilaabaya inuu u qeyliyo hawhaw. dadkii meesha joogay oo dhanna waxa ay bilaabayaan inay asaga fiiriyaan, xataa ardayda, macallimiinta. asagana xishood dartiis wax uu sameeyay ayuu garan waayay maskiinka. kadibna maamulaha waxa uu soo fuulaya masraxa, waxa uuna dhahayaa ardaygii qeylinaya ha soo fuula bartaan. wiilkana waxa uu bilaabay inuu soo aaday xagga masraxa, mana yaqaanana wax uu sameeyay. dadka muuraaligelyaa mise wuu hadlaa. maamulaha waxa uu weydiiyey ma jeceshahay inaad dadka foodaysid, asagana waxa uu dhahay maya. hagaag marka adiga maxaa saas ugu qeylisaa mar kasto. asagana waxa uu dhahay aniga waxaan qabaa cudur la dhaho Tourette. waxa uu bilaabay inuu u sharxo cudurka waxa uu yahay iyo calaamadihiisa iyo wax sababay. kadibna maamulaha waxa uu dhahay ma awoodaa inaad isxakamaysid. asagana waxa uu dhahay ma awoodi, mana lahan cudurkan daawo. ugu dambeyntii wiilka waxa uu weydiiyey anaka maxaa kugu caawin karnaa. waxa uu dhahay igula dhaqma si bini'aadanimo leh bis. ardaydii oo dhanna waxa ay bilaabeen inay u sacbiyaan wiilka. waxay ahayd markii koowaad ee dadka fahmayaan asaga. waxa uuna maamulaha ku fiirinayaa indha ee ka muuqata mahadcelin. maalintaas kadib waxa uu go'aansaday inuu asaga noqdo macallin uu caawiyana dadka. sanado badan kadib wiilkii yaraa ee Bradley waa uu weynaanayaa. markaan cudurku waa uu la qabsaday, waxa uuna dhameeyay jaamacad. waxa uuna rabaa inuu noqdo macallin. iskuul ayuu tagayaa, waxa uuna gelayaa interviewga. laakiin markasta ay ogaadaan cudurka uu qabo
waa ay raacdeynayaan. iskuulada qaar markii uu tago waxaa ka mid ah kuwa u dhowl cadeynaya bilowga hore kadibna ay qarsoomayso dhowl cadeyntooda maxaa yeelay dadkii xilligaas noolay badankooda maysan aqoonin cudurkan. markastoo madraso cusub uu tagana waxaa loola dhaqmayay si xun ka waran macalin iska qeylinaya aan iskontarooli karin saas ay tahayna rabo inuu hor istaago arday yar yar kaas oo kale ya macalin ahaan u qaadanayo. sida ay maalmaha u socdeen asagana muusan ka quusan inuu galo interviewga. iskuulada dhanna waa ay diidayeen waxa ayna ula hadlayeen asaga si xun. asagana waxa uu gaaray heer uu naco naftiisa uu dhibsadana cudurka hayo. codkan ka soo baxaya ayaa baaba'ashay mustaqbalkiisa. waxa uu bilaabay inuu garaaco naftiisa mana yaqaan qaabka uu iskaga jooji lahaa cudurkan. maalmo kadib waxa uu ku soo laabtay sidiisii hore laakiin sidoo kale waa uu waayay iskuul aqbala asaga. markii ay soo wada diideen iskuuladii ku yaala magaaladiisa oo dhan iskuulkii ugu dambeeyay ayuu ku nasiibsaday. iskuulkana waxa uu u baahnay macalin si fiican ayaa loo soo dhaweeyay intuusan cudurka ku kicin. waxa uu bilaabay inuu u sharxo ayaka cudurka haay iyo waxa uu yahay. waxa uuna ku dhahay cudurkan waa macalinka ugu weyn ee wax ibara aniga. markaan asaga waa la aqbalay waxaana loo qaatay macalin ahaan. ardayda uu wax bari rabana waxa ay ka imaanayaan fasalada kale waana macalimiinta ardayda dhibka badan ee iska soo saaraan. markii uu soo galay xiisadiisii ugu horeysay waxa uu bilaabayaa inuu ardayda u sharxo cudurka asaga haay. waxa uuna ku dhahay qof su'aal qabo miyaa jiro. cunug ayaa gacanta taaganayo waxa uu bilaabayaa inuu foodeeyo asagana ma dhibsanayo. isla cunugii ayaa waxa uu bilaabayaa inuu ku dhex socdo fasalka asagana baraanka ma u saarayo. waxa uu ku dhahay haddii aad u baahan tahay inaad dhaqdhaqaaqdid gacanta taago anigana waa kuu ogolaanayaa. xiisada markii ay dhamaato macalimad ayaa u imaanaysa waxa ayna ku dhahaysaa cunugaas anaa macalin u ahay mana jecelo inuu fadhiisto. waxa uu jecel yahay inuu wareego. cunugaas wax ma baranayo ku wareerin iska racday. hadalkaasna waa hadalkii la dhihi jiray asaga markii uu yaraay. maalinkii labaadna waxa uu arkaya wiilka uu ku qoray hadallo ceeb ah musqashada. wiilka ayuu soo wadaya waxa uuna bilaabaya inuu la sheekaysto. wiilkana waxa uu ku dhahay aniga waa necbahay waxbarashada ilaa yaraanteeda. asagana waxa uu bilaabaya inuu ugu sheekeeyo noloshii uu soo maray. waxa uuna ku dhahay aniga waxbarashada sidaadoo kale ayaa necbaay. qofka cudurkayga oo kala qabana waxa ku adkayd inuu iskontaroolo. ugu dambeyntiina wiilka waxa uu fahmaya ujeedada macalinkiisa. intaas kadibna wiilka waxa uu bilaabaya inuu jeclaado waxbarashada. waxa uuna baranaya qoraalka iyo akhrinta. Bradley waxa uu ku guuleystay inuu badbaadiyo cunuga mustaqbalkiisa maxaa yeelay saacadan cunugan waxbarashadiisa waa uu ka tagi lahaa macalimiinta dhanna waa ay dhibsadeen. ugu dambeyntiina macalinka sidaan ayuu kula qabsaday iskuulka. gabar ardaydiisa ka mid ah waxa uu ku arkaya inay tinteeda maalin kasta sii yaraanayso. waxa uu ku dhahaya adiga maxaa kugu dhacay. waxa ay ugu jawaabaysaa waa daawada kansarka ee aan qaato. maalintaas kadib ardayda waa ay ugu socneed waa uuna la sheekaysan jiray waa uuna ka farxin jiray. ayadana waxay ahayd gabar had iyo jeer faraxsan oo hadalka maqlayso. maalin gabarta imaanaysa iskuulka waxaana loo soo sheegaya inay dhimatay. tacsideeda ayuu ka qayb galaya asagana waxa uu istaagaya banaanka maxaa yeelay cudurka ayaa kusoo kacay mana rabi inuu dadka dhex galo oo murugadooda ugu daro dhibaato. asagoo sii baxaya gabarta hooyadeed ayaa soo baxaysa waa ayna u waceysaa. waxay ku dhahaysaa gabarteeda aad ayay ku jecleed waxaana ahayd macalinka ugu fiicnaa ee soo maray ayada. kadibna ayada ayuu raacaya waxa uu nala gelaya meesha. asagana cudurka ayaa kusoo kacaya laakiin dadku waa ay ogyihiin inuu asaga jiran yahay uu yahayna macalin fiican. intaas kadibna macalinkan waxa uu sii wadanaya waxbarashada. waxa uuna tagaya mid ka mid ah jaamacadaha waxa uuna rabaa inuu barto masterka. wayna u diidaya inuu imtixaanka la gala ardayda kale. waxa ayna ku dhahayaan adiga keliya ayaa gelaysid. keligiis ayuu gelaya imtixaankan waxa uu ahay mid aad u adag. cudurkii ayaana ku kacay waa uuna awoodi waayay inuu isxakameeyo. maalmahaas ay u socdeen gabartan ay isbaranayaan ayadana waa ay ku jeclaanaysaa sida uu yahay. waxa uuna go'aansaday inuu cumrigiis inta kaarta ayada uu la noolaado. iskuulkii uu dhigayana waxa ay u aqoonsadeen inuu yahay macalinka ugu saameynta badnaa ee sanadka. inkastoo asaga uu ahay macalin jiran laakiin waxa uu ka fiicnaaday macalimiintii kale. kadib markii uu damcay inuu dadka u mahadceliyo oona ka hadla masraxa waxaa ku soo laabatay jiradii laakiin dadka meesha joogay oo dhan ma aysan dhibsanin asaga. saas ay tahayna waa ay u sacbiyeen. asagana waxa uu dhahayaa in cudur lagugu imtixaano waa macalinka ugu fiican ee nolosha. anigana jirada iyo heeso wax badan ayaa ka bartay. intuusan sheegin ardaydiisa ayaa hadlaysa waxa ayna dhahayaan waxaa ka baratay inaa ahaatid mid awood badan oo u sabartidna inaa gaartid guushaada. arday kale ayaa waxa uu dhahaya adiga waxaa ka baratay in markastoo aa kuftid aa kacdid si aa usii socotid. ardayda dhanna waa ay hadleen mid kastana wax ayuu sheegay. dadkii soo xaadiray xafladda waxa ay ogaadeen inuu macalinkan istaahilo abaalmarinta. idinkana waxa idin rajeynaa inaa naftiina aamintaan oo ka gudubtaana dhibaatooyinka nolosha. midda kale weli waa ay socotaa lacagtii aan u aruurinaynay walaalaheen dhibaataysan. hadeertaana lacagta aan aruurineen waxa ay maraysaa $1,000 waxaana rabnaa inaan gaarsiino $10,000 intaa la gaarin ramadaanka. midda kale idinkana nagala qayb qaata insha Allah. ilaa ramadaankan waa wadi doona aruurinta waxaana kusoo diri kartiin lacagta nambarkan. filimkan waxaa qoray Kabtan Maajid waxaana codeeyay anigoo Cabdulxaliim Cali waxaana editgareeyay isla Kabtan Maajid. waana qiso dhab ah oo dhacday oo loo bedelay filim. haddii aa ka heshay fadlan walaysa amran marka koowaad muuqaalka like saar youtube-keena Kabtan Maajidna subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ah soo dhigayno. filimkan magaciisa waxaa la lahaa Front of the Glass. muuqaalkeena maantana saas ayuu ku dhamaaday. waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalka xigo maca salaama.